asalaamu calaykum. waan kaga mahadcelinayaa daawashada iyo la socoshada muuqaalada kala duwan ee halkan ku soo bandhigo. dad badan ayaa waxay xiiseeyaan dhacdooyinka taariikhiga ah, kuwa sirdoonka la xiriira arrimaha caafimaadka iyo qoyska iyo xigmadaha ee aan halkan ku soo gudbiyo. waan kaga mahadcelinayaa mar walba daawashada iyo ka aragti dhiibashada muuqaalada kala duwan. waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa warbixin ka hadlaysa siyaasiyiin, madaxweyneyaal iyo shirqooladii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay. waxaan ku hormaraynaa kow, alexander litvinenko. wuxuu ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dalka raashka ee k g b loo yaqaano, balse si hoose ayuu ugu biiray sirdoonka dowladda ingiriiska ee loo yaqaano MI6 sanadkii 2006. sirdoonka dalka ruushka ee k g b oo ka mid ah sirdoonada adduunka ugu khatarsan ayaa diyaariyay shirqool lagu qaarijinayo litvinenko oo muddo sanad ah sirtii dowladda ruushka u gacangelinayo sirdoonka ingiriiska ee MI6. sirdoonka dowladda raashka ee magacooda loo soo gaabiyay k g b waxaa u suurto gashay inay xiriir la yeeshaan shaqaalihii hodheelkii cuntada uu ka cuni jiray ee uu deganaa ee ninka lagu magacaabo alexander litvinenko. 3 iskuday oo dil oo fashilmay ayaa la isku dayay in lagu qaarijiyo master litvinenko kadib markii sirdoonka ay dhinacyo kala duwan ay ka soo mareen. iskudaygii afraad ee ugu dambeeyey ayay u suurto gashay in ay koob shaax ah ay ugu daraan sun, taas oo ahayd mid culus oo shucaac gelinaysay nafsadiisa, waana midda loo yaqaano acute radiation, midda shucaaca ku abuurtay jirka bini'aadamka. isaga oo ku sugan qolkiisii hurdada ee hodheelkii uu deganaa ayaana arrintaas lagu sameeyey. 3 isbuuc kadibna master litvinenko waxaa la dhigay xarunta caafimaadka ama dhakhtarka, laakiin goobtaas ayuu ugu dambayntii ku dhintay. shilkaasina waxaa loo yaqaanaa dil siyaasadeed qorshaysan oo lagu dilay master litvinenko. 2. lee harvey oswald. ninkani wuxuu ahaa ninkii fuliyey dilkii madaxweynihii dalka maraykanka ee john f kennedy sanadkii 1963. waxaa dilay nin la oran jiray jack roby. master lee waxaa lagu toogtay magaalada dallas ee dalka maraykanka. dallas waxay ka tirsan tahay magaalooyinka dalkaasi maraykanka. dilkan ayaa waxuu ka dhacay xarunta guud ee booliiska ee magaalada dallas. xarunta booliiska ayaa si weyn loo ilaalinayay. booliiska maraykanka ayaa jahwareeray, waxaana ay jahwareer adag ee ka qaadan sida fudud ee ninkaasi toogashada uu u fuliyey, iyaga oo xarunta ammaankeeda si weyn loo ilaalinayay. xirfadaha dilkan ayaa lagu sheegaa inuu ahaa mid heer sarayse ah oo ay adag tahay inuu qof shacib ahi uu qorsheeyo. dilka ninkan lee lagu magacaabo ee lagu dilay dalka maraykanka isagana ka dambeeya dilkii madaxweyne john f kennedy waxaa loogu magacaabaa dil siyaasadeed. 3. john lemon. wuxuu ahaa xubnihii aasaasay shirkadda Peerless oo ah shirkadda ugu caansan ee soo saartay cinjirka. waxaa kale uu ahaa xubin u ololeeya nabadda. waxa uu ahaa afmiinshaar ilaahay hibe u siiyey inuu dadka si fudud kaga dhaadhiciyo nabadda iyo fikiradiisa kala duwan. wuxuu doodo badan uu la galay dad ka soo horjeeda fikirkiisii, kadibna waxa uu kaga xoog batay doodii uu la gelaya dadka fikradihiisa nabadda iyo horumarka ku sallaysan kaga soo horjeeday, waxaana uu sumcad ku helay hadalyaqaannimadiisa. sanadkii 1980 isaga oo maraya meel waddo ah oo ku taala magaalada new york ee dalka maraykanka ayuu magaciisa ugu yeeray nin, isaga oo kor u qaadaya magaca ninkan. kadibna waa uu eegay. wuxuu arkay nin la oran jiray mark david oo ku soo socda, oo ay u soo direen kooxihii ka soo horjeeday. markii uu soo gaaray master mark ayuu toogasho ku dilay ninkan, waxaana uu ku dhiftay 4 xabadood. mark waxa uu dhex fadhiistay dariiqii uu ku dilay john isaga oo sugayay in la xidho, waxaana ahayd sheeko cajaa'ib ah markii uu dilay john lemon oo isagana ahaa afmiishaar. dilkaysana waxaa la sheegaa inuu ahaa dil nooca loo yaqaano afmiishaarnimada. 4. robert of kennedy. jaamacadda harvard ayuu ka bartay sharciga. wuxuu ahaa lawyer. dowladdii john f kennedy wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. robert wuxuu isu soo sharxay jagada madaxweynaha dalkaasi horaantii sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursiga aqalka cad ee koongareeska maraykanka, waana uu ku guulaystay. isla sanadkaasi dabayaaqadiisii ayuu u tartamay kursiga madaxweynenimada, isagoo ku jira ololihiisii doorashada oo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisii ayaa hodheelka ambasador ee magaalada los angeles ee dalka maraykanka oo uu dad badan kula hadlayay. markii uu khudbadda dhammeeyey isagoo gacan qaadaya dadkii daawanaya ee goobta ku sugnaa ayaa nin la oran jiray sirsan waxa uu soo dhex galay dadkii uu salaamayey. markaasuu bastoolad ku toogtay
goobtii ayuuna ku geeriyooday. ifka waxa uu kaga tegay 11 carruur ah oo isugu jiray gabdho iyo wiilal. ninka dilka geystana wuxuu ahaa Falastiini kaga aargoosanaya taageerada Maraykanka uu siiyey Israa'iil dagaalkii 6 cisho ee sanadkii 1967. nooca dilkiisana waxa uu ahaa dil siyaasadeed. 5. Malcolm X wuxuu ahaa nin madow ah oo muslim ah. wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyey ururkii awoodda dhaqdhaqaaqa dadka madow ee dalka Maraykanka sanadihii 1960 ilaa sanadihii 1970. wuxuu bilaabay halganka xorriyadda dadka madow ee Maraykanka sidii kuwa cad ee ula sinaan lahaayeen kuwa madow. wuxuu xubin ka ahaa ururka Islaamka ee Maraykanka. isagoo oo khudbad ka jeedinaya meel fagaara ah ayuu nin hubaysani ku soo dhex dhuuntay dadkii dhageysanaya khudbadda, kadibna rasaas ayuu ooda kaga qaaday. halkaasi ayuuna ku dhintay. ninkani wuxuu ahaa cunsuri necab dadka madow. nooca dilkiisana waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dil midabta koor ah. 6. Martin Luther King wuxuu ahaa maskaxdii ugu weyneed ee aasaastay dhaqdhaqaaqii xuquuqda shacabka Maraykanka. wuxuu si weyn dagaalka afka ugu qaadi jiray kooxihii cunsuriyiinta ahaa ee caddaanka ahaa ee dadka Maraykanka qaybta ka ahaa. wuxuu ahaa nin madow ah. horraantii sanadkii 1968 isaga oo taagan dayrka gurigiisa dabaqa 2 ayaa toogasho lagu dilay. ninka toogtay ayaa la oran jiray James Earl. wuxuuna u baxsaday magaalada London ee dalka Ingiriiska, kadibna waa la soo qabtay. James wuxuu ahaa nin cad oo diidan xuquuqda dadka madow. nooca dilkiisa oo ninka lagu magacaabo Martin Luther King wuxuu ahaa dil midab nacayb ah. 7. Abraham Lincoln wuxuu ahaa madaxweynihii 16aad ee dalka Maraykanka. wuxuuna xilka hayay sanadihii 1861 ilaa 1865. madaxweyne Abraham wuxuu taageero weyn u siiyey xorriyadda dadka madow ee Maraykanka ah. sanadkii 1865 ayuu madaxweyne Abraham tagay tiyaatar isaga oo doonayay in uu kaga qayb galo riwaayad ay dhigayeen fanaaniinta madadaalada ee dadka ka qosliya. waxaa arrintan ka warhaya ninka doonaya inuu dilka fuliyo oo la oran jiray John Wilkes oo basaas ahaa. madaxweyne Abraham muusan sii kaxaysan ilaaladiisii gaarka ahayd, balse waxa kaliya oo goobta tiyaatarka ilaalinaya 3 askari. taasina waxay fursad dahabi ah ay siisay Wilkes oo dilkaani fulinayay. markii madaxweynaha uu galay tiyaatarkii ee uu fadhiistay ayuu madaxa ka toogtay, waana uu baxsaday. inkastoo markii dambe la soo qabtay maalmo yar kadibna la sii dilay. waxaa shacabkii Maraykanka iyo adduunkaba ka dhaadhici weyday sida fudud ee dilka uu dhacay. nooca dilkiisana waxaa lagu sheegaa inuu yahay dil siyaasadeed. 8. Julius Caesar wuxuu ahaa siyaasi iyo hogaamiye military. wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii Roomaaniyiinta ee qarnigii 1. wuxuu hoodo ku lahaa dagaalkii iyo kicintii dadweynaha. wuxuu ahaa ninkii bilaabay dagaalkii sokeeye ee Jamhuuriyadda Roomaanka. waxaa loogu yeeri jiray keligii taliye aan jixin ama dictator. kooxaha lagaga adkaaday dagaalka sokeeye ee Caesar hogaaminayay ayaa u diyaariyay shirqool aad u adag, kaas oo ahaa shirqool dil ah. isagoo maraya dariiq oo tiyaatar agtiisa ah ayay joojiyeen kooxihii dilka waday, waana ay u yeedheen iyaga oo ka dhigaya inay wax weydiinayaan oo kale. kadibna waxa ay ku boobeen midiyo iyo faasas jirkiisii ayayna meel walba ay ka dileen, waxaanay u diideen jirkiisa meel nool. Master Caesar wuxuu ahaa nin quwad weyn. kadib wuxuu isku dayay inuu baxsado, laakiin wuu dhacay. halkaasina ayuu ku dhintay. dadkii taageersanaa Roomaanka ayay ka dhaadhici weyday sida fudud ee loo qaarijiyey Caesar oo ahaa nin awood badan. nooca dilkiisana waxaa lagu sheegaa dil siyaasadeed. 9. Indira Gandhi waxaa dhalay Jawaharlal Nehru oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Indiya ay yeelato. aabbaheed wuu geeriyooday. Nehru wuxuu dhalay Indira kaligeed. Indira Gandhi waxay waxbarashadeeda ku soo qaadatay jaamacadda Oxford, inkastoo aanay aqoontu ku fiicneen. Mrs. Indira waxaa guursaday nin la oran jiray Foreza Gandhi oo aabbaheed aanu raalli ka ahayn. waxay u dhashay 2 wiil oo kala ahaa Rajiv Gandhi iyo Sanjay Gandhi. tartankii ra'iisul wasaarenimada ee Indira Gandhi waxay ka faa'iideysatay sumcaddii aabbaheed, waxaana isku sharaxday jagada ra'iisul wasaaraha. waqtigan aabbaheed wuu noolaa. sanadkii 1966 ayaa loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Indiya. waxay loolan adag la gashay xubnihii rugcadaaga ahaa ee siyaasaddii uga soo horreeyey, balse way ka adkaatay. Indira Gandhi wuxuu khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay iyada iyo kooxihii Zingaha ahaa. markii khilaafkii uu dhammaan waayay ayuu isku rogay dagaal xoogan oo ka dhex qarxay dowladda iyo Zingaha. Indira waxay amar ku siisay ciidankeeda inay burburiyaan macbadka ugu weyn ee ay leeyihiin Golden Temple la yiraahdo.
madaafiic ayaa lagu garaacay, dhulkana waa lala simay. waxaa ku dhintay dad fara badan. indira gandi waxay ilaaladeedii gaarka ahaa ka mid ahaa askari ziinga ah ama ziingaziingaha kuwa loo yaqaan. aroor hore iyada oo ka soo baxaysa qasrigeeda ayuu toogasho ku dilay. askariga dilka nooca uu u fuliyana waa dil siyaasadeed. 10 qoyskii cali buuto. cali buuto wuxuu noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Baakistaan sanadkii 1965. wakhtigaas waxaa socday dagaalkii Hindiya iyo Baakistaan. wakhtigan waxaa golaha ammaanka ka socday dood culus oo u dhexaysay Baakistaan iyo Indiya. wuxuu ahaa nin dheer oo aftahana. hadalladii uu oran jireen waxaa caan ahaa oo suuqa galay. madaxda dowladaha dunida saddexaad kii dalkiisa daacad u noqdana sirdoonka Maraykanka ayaa shirqool ku dila. kii xidhiir fiican la sameeya Maraykankana shacabkiisa ayaa ka soo horjeesta. marka dhinac walba u daran madaxda. cali buuto markii uu Baakistaan ku noqday wuxuu aasaasay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyay Pakistan People's Party PPP ama xisbiga dadka reer Baakistaan. madaxweynihii hore ee Baakistaan ee wakhtigaasi Yaxya Khan ayaa lagu jebiyey dagaalkii u dhexeeyay Baakistaan iyo Bangladesh. kadib wuxuu kacdoon shacab ku bilaabay madaxweynihii, taasina waxay keentay inuu iscasilo. xukunkii dalka ayuu la wareegay cali buuto. dadkii kacdoonka waday ayaa waxay dalbadeen in la xiray Yaxya Khan, waana la xiray. xukunkii dalka Bangladesh ayuu cali buuto gacan adag ku qabtay. wuxuu booqasho rasmi ah ku tegay dalka Hindiya. wuxuu heshiis xabajoojin ah la siixday Indira Gandhi oo xilligaas ahayd ra'iisul wasaare. Baakistaan waxay aqoonsatay dalka Bangladesh. cali buuto wuxuu taliyaha ciidanka u magacaabay Generaal Zaya al-Haq. waxaa kaloo uu ka dhigay guddoomiyaha guddi loo soo diyaariyey, kaas oo soo diyaarinaya dastuur dalkaasi uu yeesho. ra'iisul wasaaraha awood badan ayuu yeelanayay. xisbiga BBB ayaa ku guulaystay doorashada, kadibna wuxuu baarlamaankii u doortay ra'iisul wasaare. dhowr sano kadib ayuu afgambiyey generaalkii uu taliyaha uu ka dhigtay. saaxiibkiisii ugu dhowaa ayuuna ahaa, wuxuuna ku xukumay daldalaad, waana lagu fuliyey. adduunka ayaa ka qayliyey xukunkii daldalaadda, balse umuusan joojin oo wuxuu ahaa nin naxariis daran. nooca dilkiisana wuxuu ahaa dil siyaasadeed. warbixintan waxaa diyaariyey cali cabdi coomey oo ah suxufi iyo qoraa. wuxuu ku sugan yahay Hargeysa. waxaan kaga mahad celinayaa qoraalkan, dad badan ayaa ila wadaagay. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka ogaatay 10kii dil ee ugu cajiibsanaa ee dunida ka dhacay. mahadsanid.